sida wasiir cabdi uu sheegay waxaa jira inamo 53 ah dhalinyaro ah Liibiya laga keenay laga soo dejiyay Muqdisho kulligoodna ah reer Hargeysa ahaa reer Somaliland ilmahaas waxaa laga soo saaray diyaarad magaalada Muqdisho markay dul taagnayd garoonka Hargeysa baa waxa la yiri lama ogola waa Soomaali meeshii ka yimaadeen hal geeyo diyaaradda hay'adda aywan baa nala soo hadashay waxaan ku niri ku soo celiyo garoowe ayaan ka soo rognay habeen iyo maalin halkaan ku haynay 24 saac waxaan inta bariyeynay Muuse ka bariyeynay ilmaha yaryarka hooyooyinkood in loo celiyo oo guryahoodii laga soo celiyo qaarkood hoteeladan ugu tagana way xanuunsanaayeen miidiyaha kilibkii laga duubay wuu yaalaa waa insiinaynaa waan u diidnay garoowe intii joogay inaan cod ka qabanno sababtoo waxay nagu yiraahdeen sidii gabadhii ina qorna ahayd baan jeel wada gelaynaa annagu markii Muuse uga baqayna baan waxa ka caytay muxuu ahaa kala leexanay miidii waxaas ku faraxsanahay inay shalay kala degeen xalina ay hooyooyinkood iyo guryahooda ay tageen taas waxaan leenahay waxa weeye dhibaatada ka jirta iyo garashada ka jirta Hargeysa ayay tusaysaa inay yaro 4 sano jeel magafaa ku jiray markii inta Hargeysa uu tuga laga soo celiyo hadana oo waliba xanuunsan waa nasiib darro Puntland waxay u sheegaysaa shacabka Soomaaliya iyo Hargeysa Muuse waa nin reer qabri bayax mas'uuliyadda Hargeysa ma qaadi karo odayga Master Bean la yiraahdo tiyaatar u sameeyay talaha weydiinina haddaad isku sii daysaan biixi iyo Master Bean waa baabacaysa Puntland si naxariis leh garasho leh waxay idin leedahay is aruuriya dad waxaad ahaydan loo haweynaa ummadda Soomaaliyeedna maqaam sare uga jira in taladiina ay ku soo ururto ninka reer qabri bayaxa ah oo Muuse iyo Master Bean waa talo weydiisaan oo daba fariisataan idin ma lacag annaga ehel idin ah annaga garasho idin ah waxaan leenahay taasna waxaan leenahay wax garadkii Somaliland ha badbaadiyaan Somaliland intaasaan ku daraynaa waxaan u sheegaynaa wasiirka cadaaladda Sheekh Khaliil waxaan isku hayno waxaan isku haynaa annaga Somaliland ilaah baa yiri iyo Ingiriis baa yiri oo annaga noo sheego koofil baa soo diray haddaan Somaliland nahay oo sool qabsada waa xuduudeeni baa Ingiriis ugu yiri bay leeyihiin annaguna waxaan leenahay ilaah baa ugu yiri meesha sool idinka iska leh dadka iyaga baa degan ilaah baa na dejiyay hadda diinta qaanid ilaahay Ingiriis ha siin sheekhan intaas aan leenahay wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh